kulanti wacan wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkeena xanta wararka daawadayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan halkan waa janaalkeena xanta wararka oo alaabaad kaga barateen in uu idiin soo bandhigo xogaha qarsoon siraha iyo macluumaadiyada gaarka ee janaalkeena xanta uu helayo caawana daawadayaal qodobada wararka ugu waaweyn ee janaalkeena daawan doontaana waxaa kamid ah Somaliland ayaa dacwad ka gudbisay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da maxay tahay sababta ugu weyn xilligan maamulkaas dacwada kaga gudbeen BBC-da maxay si tabanayaan xog buuxda ayaan kaga hayaa qodobada kale wararka aad ku daawan doontaana waxaa kamid ah golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa waxa ay cambaarayeen dilalkii ugu dambeeyay ee dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed loogu geystay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maxay ka yiraahdeen maamulka koonfur galbeed dilalkii bareerka ah ee loo geystay dadka halkaas ka soo jeeda xog buuxda ayaan kaga hayaa maxay tahay sababta ku qasabtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Kenya oo jirdil xoogan u geysto isla xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka qalalaaso maanta ka dhacay fadhigii baarlamaanka ee dalkaasi Kenya iyo xildhibaanada isku gacan qaaday warka ayaad ku daawan doontaan warbixino dhameystiran madaxweynaha Hirshabelle waxa uu guddi u xil saaray in baaris rasmi ay ku sameeyaan shaqooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Beledweyne iyo sababtii loo dilayba taliyihii ciidanka booliiska ee gobolka Hiiraan musuqmaasuq xoogan waxa lagu sameeyay shirkadihii sanadkan ka qayb qaadan lahaa adeegyada xujayda ee sanadkan xajinaya qaar kamid ah shirkadaha dalkan waxa ay sheegeen in musuqmaasuq xoogan lagu sameeyay warbixin gaar ah kaga haya warkaad ku daawan doontaan waxa fashilmay shirkii lagu waday magaalada Garowe ku yeeshan madaxda maamul goboleedyada dalka maxay tahay sababta keentay xilliga shirka uu fashilmo warbixin gaar ah warka ku daawan doontaan waxa kale oo qayb ka dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurubna waxay kala saxiixdeen mashruuc ku baxaya 12 milyan oo lacagta yuroga u diyaar garooba daawadayaal qodobadaasi kuba kale inaad daawataan intaad wararkeena daawanaysan daawadayaal haddaad ku cusubtahay janaalkana subscribe leh gambaleelkana furo qaybta hoose ee commentigana mar walba nagula wadaag aragtidaada waxaan gudagalaynaa daawadayaal wararkeena ugu waaweyn ee maanta qaar kamid ah shirkadihii sanadkan ku guuleystay inay ka qayb qaataan adeegyada xujayda waxa ay xaqiijiyeen hadda ay shaaciyeen in musuqmaasuq xoogan lagu sameeyay guddiga kala saarista ximlooyinka u tartamaya fulinta adeegyada xujayda oo ay magacowday wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa waxa ay shaaciyeen in la musuqmaasuq xoogan lagu sameeyay qaabkii markii hore loo soo saaray adeegyada shirkadaha ku guuleystay xujayda sanadkan guddiga ayaa lagu eedeeyay in musuqmaasuq ay ku sameeyeen qoondada qaar kamid ah shirkadihii ay markii hore shaaciyeen inay kamid yihiin shirkadaha ku guuleystay in sanadkan ay ka qayb noqdaan fulinta adeegyada xujayda shirkadahan qoondadooda la musuqmaasuqay ayaa waxaa kamid ah shirkadda African Express oo sheegtay inay ku guuleysteen kamid noqoshada liiska balse ay jireen balse markii dambe la musuqmaasuqay qoondadooda sida ay sheegeen madaxa shirkadda African waxa uu sheegayaa in wax lagu xumaado ay tahay dhibaato lagu sameeyay shirkadooda arintaas waxa uu sheegay in ay mas'uuliyadooda qaadanayso wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee Soomaaliya waxay madaxda ugu sareysa ee dalka gaar ahaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta loogu baaqay in xuquuqda shirkadaha ay ilaaliso maadaama markii hore la soo bandhigay liis shirkadaha ka qayb qaadanaya sanadkan ee xujayda dawladda Soomaaliya ay soo bandhigtay waxaana hadda liiskaasi laga waayay qaar badan oo kamid ah shirkadahaasi kuwaas oo qaarkood hadda sheegaya in la musuqmaasuqay qaybaha kale ee wararkeena ku jirana waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waareen waxa uu guddi xaqiiqi raadin ah oo ka kooban 10 wasiir oo baaris ku sameeya dilka taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Hiiraan magacaabay guddigan ayaa waxaa gudoomiye looga dhigay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda ee maamulkaasi Cabdiqaadir Cismaan Cabdisalaan waxaana gudoomiye ku-xigeen looga dhigay wasiirka amniga Cabdiqaadir Aadan Jeele guddigan ayaa sida oo hore u shaaciyayba madaxweyne Waare waxa ay si wada jir ah ula shaqeyn doonaan guddiga oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya xiisad ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa wali ka taagan magaalada Beledweyne ayadoo wali uu diiday Yuusuf Dabageed in xilkan uu ku wareejiyo mas'uuliyiinta ama hogaamiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka
waxaana xiisad ka dhalatay arrintaasi weli ay ka tagantahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana laga cabsi qabaa in magaaladu ay wajahdo qalqal aad u xooggan. Golaha wasiirada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay cambaariyeen dilalkii bareerka ah ee loo geystay dadka ku nool deegaanada Galmudug ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagaran oo shir gudoominayay shirkii toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxa uu cambaariyay dilalka bareerka ee loo geystay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo amarkii ka soo baxay Galmudug ee aan dadkaas iskaga baxan deegaanada. Shirka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha ammaanka, dhaqaalaha, siyaasadda waxaana warbixino ku aadan arrimaha amniga laga dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Isaaq Borow Isaaq waxaana uu ka warbixiyay howlgallada ay wadaan ciidanka militariga iyo kuwa amisom ka soconaya gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo lagu ciribtirayo haraadiga Al-Shabaab. Sidoo kale shirka ayaa waxaa marti ku ahaa gudoomiyihii guddiga shaqaalaha rayidka ee Koonfur Galbeed waxaana warbixino ku aadan habka ay u socoto shaqaalaha ka dhageystay golaha wasiirada iyo waliba madaxweynaha. Shirka ayaa waxaa si weyn looga hadlay dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday deegaano hoostaga magaalada Dhuuso Mareeb oo lagu dilay shacab iyo waliba ganacsato ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ugu horeyn Mudane Cabdicasiis Laftagaran ayaa ka tacsiyay tirada dadkii halkaas lagu laayay wuxuuna sheegay in maamulkooda ay ka xun yihiin wixii ka dhacay Dhuuso Mareeb Galmudugna ay kula xisaabtami doonaan. wuxuuna sheegay in wax la aqbali karo aysan ahayn in dad ka soo jeeda Galmudug si bareer ah waa dad ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed in si bareer ah lagu toogto magaalada Dhuuso Mareeb. Shirka ahaa mid toddobaadkiiba hal mar ay ku yeeshaan ayaa inta badan xubnaha ka qayb galay waxay diiradda ku saareen arrimaha ka jira Soomaaliya gaar ahaan dilkii loo geystay xubnaha ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. wali xataa wanaysan wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale markan dhacdo cajiib ayaa idiin soo wadaa maanta waxaa dagaal ka dhaxdhacay xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee Kenya oo isku feeray gudaha baarlamaanka. Arrintan ayaa ah mid si weyn loo hadalhayo. ciidanka booliiska ee dalkaasi Kenya ayaa waxay xabsiga dhigeen xildhibaan Rashiid Amiin oo kamid ah xubnaha baarlamaanka kadib markii isla xildhibaanad kale oo baarlamaanka ka tirsan oo si bareer ah u feeray xildhibaanka laga soo doortay bariga Wajeer. Rashiid Amiin ayaa la xiray kadib markii uu ku dhex feeray gudaha golaha baarlamaanka xildhibaanad lagu magacaabo Faadumo Geedi. Rashiid Amiin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka lagana soo doortay bariga Wajeer ayaa waxaa lagu eedeeyay in Faadumo Geedi uu gacan qaaday gudaha dhismaha baarlamaanka gudihiisa asaguna feer la dhacay xildhibaanada feerkaas oo sababay in afka ama qaybta hore jirka afkeedaba uu dhiig ka soo daato. Wararka ayaa waxay sheegeen in Masar Amiin oo xildhibaanad Faadumo ku eedeeyay inaysan deegaankiisa wax dhaqaale ah u qoondeerin maadaama xildhibaanadu ay ka mid tahay xubnaha ugu firfircoon ee ku jira guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka dalkaasi. Arrintan ayaana sababtay in dhammaanba xildhibaanada dumarka ay ku jira baarlamaanka Kenya in ay maanta iskaga baxaan aqalka ayadoo uu socdo kulamo muhiim ah oo ku saabsan miisaaniyadda sanadka. Talaabadan ayay mudanayaashu ay ku muujeen carada ay ka qaadeen wixii maanta ka dhacay fadhiga baarlamaanka. Ugu dambeyn ciidanka booliiska ayaa xabsiga dhigay xildhibaanada waa xildhibaanka dilay xildhibaanada taas oo arrintan hadda u gudubtay hay'adaha garsoorka sida ay dowladda Kenya ay booliisku shaaciyeen. Shirkii ka dhici lahaa magaalada Garowe waa uu fashilmay madaxda qaarkoodna dib ay ugu soo laabteen gudaha dalka. Warbixino ku saabsan in eegi doonaa warar lagu kalsoon yahay oo helay janaalkeena waxa ay sheegay warar kala duwan oo soo baxay ayaa waxa ay sheegeen in shirkii madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelanayeen magaalada Garowe la shaaciyay in dib u dhac ku yimid iyadoo shirkan ka qabsoomi lahaa maalmaha soo socda magaalada Garowe. Sidoo qorshuhu ahaa waxa ay ahayd in shirkan uu furmo shalay oo Arbaco ahayd balse waxa uu noqday mid aan qabsoomin iyadoo aan wali si rasmi ah loo ogeyn waqtiga sida dhabta ah shirkan u furmi doono. Wararka qaar waxa ay sheegeen in shirkan uu baaqday culays siyaasadeed oo soo food saaray madaxda maamul goboleedyada iyo cilado farsamo oo madaxda soo wajahay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu soo gaaro magaalada Nairobi kaas oo ka imaan doona magaalada Addis Ababa halka uu la kulmi doono mas'uuliyiin kala duwan. Waxaana maalinta bari oo Jimcaha la filayaa in dib ugu laabto magaalada Garowe caasimadda Puntland maadaama maalinta Sabtida ah si rasmi ah u furmi doono kalfadhiga baarlamaanka maamulkaasi Puntland. Sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shalay ka soo
laabtay magaalada Nairobi isagoona usoo baxay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne sidii xal looga gaari lahaa. Magaalada Nairobi haatan waxaa ku sugan madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Galmudug iyadoo Axmed Madoobe muddooyinkii dambe halkaas uu joogay safaro dhanka shaqada ah. halka dhinaca kale shalay duhurnimadii magaaladaas uu gaaray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxaa la xaqiijiyay hadda in shirka uu fashilmay laakiin madaxda qaarkood waxa ay sheegeen in dib la isku soo laaban doono shirka. ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurubna waxay kala saxiixdeen mashruuc ku baxay 12 milyan oo lacagta yuroga ah. mashruucan waxaa la xaqiijiyay in lagu dhisi doono wadooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa munaasabad kooban oo goobjoog ka ah ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya Muqdisho lagu qabtay waxayna maanta si wadajir ah u wada saxiixeen heshiis maalgelin ah oo mashruuc dib loogu dhisayo waqooyiga gobolada dalka Soomaaliya dhaca. midowga Yurub ayaana bixinaya 12 milyan oo lacagta yuroga ah oo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha. wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo waliba safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa labaduba saxiixay heshiiskan. mashruucan dib loogu dhisayo wadooyinka gobolada Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb qaadan doonaan sare u qaadida awoodda hay'adaha dhismaha iyo wadooyinka heer federaal heer dowlad goboleed. mashruucan oo dib loogu dhisayo laguna dayactirayo ilaa 355 kilomitir oo kamid ah wadooyinka isku xira dalka Soomaaliya ayay dowladdu sheegtay in muhiim ay u tahay horumarka dalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si xoogan u bogaadinaysaa taageerada joogtada ah ee midowga Yurub ay siinayaan dowladda iyo waliba shacabka Soomaaliyeed. taageerada 42 milyan ee yuroga ah ee dib loogu dhisayo wadooyinka ayaa waxa ay sii xoojinayaan 100 milyan ee yuroga ah ee dhawaan midowga Yurub ay ku taageerayaan kaabayaasha miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya. midowga Yurub ayaa hore dhowr mar hore waxa ay shaaciyeen in dhaqaalaha ugu badan ee lagu dhisi doono Soomaaliya ay bixin doonaan midowga midowga Yurubna waxa ay taageero xooggan ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal halkaas aan kusoo gabagabeynaa wararka aad ka daawaneysaan janaalkana xanta wararka daawada haddaad ku cusubta janaalkan subscribe leh qaybta hoose ee commentiga mar walba nugula wadaag aragtidaada.